muwaadin maxaad ku xulan lahayd xildhibaanka kugu metelaya golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ee uu kaga duwan yahay murashaxiinta kale ee tartanka kula jira Yaasiin waxaan ku xushay waan isma falaa horta waan wax badan soo qabtay ka soo shaqeeyay arrimo khayr iyo reerka dhexdiisa iyo gobolka iyo degmada Hargeysa waan dad badan oo dan yar ah oo wax tar u baahnaa taray waan aan hawlo badan soo wada galnay waa aqoonyahan daayar inkastoo qurba joog yahay haddana waa nin qurba joog ah oo intuu waddanka joogay intuu qurba joogaa isla tahay oo aan wax badan ku soo tijaabinay oo rab badan oo khayr iyo reer ku leeyahay dhexdiisa iyo mid heer gobol ay mid reegdimo ka soo shaqeeyay marka wax xubin ku habboon baan aaminsanahay inuu nagu matalo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa Yaasiin Cumar Yare waa nin aqoon-yahana waa nin degan waa nin aqoon leh waa nin runtii sidaas Saciidan qurbaha isku baranay laakiin anigu aan markaan ugu tagay Ingiriiska sida Saciidan Hargeysa aan ku kulmanay Ingiriiska igu soo dhaweeyay waa nin aan wada sheekaysanay waa nin ururka khayriga ee Saciidna kulmiyay isaga laftiisu aan wada asaasnay waa nin ma garanaysaay runtii jecel inuu deegaanka uu ka soo jeedo wax u qabto oo mar walba jecel inuu dadka baahida ka jirta haday tahay miyiga iyo haday magaalada tahayba inuu wax ku soo kordhiyo wax u qabto wax alaala wuxuu qaban karo uu qabto marka ninkaasi waa nin hamad leh waa nin fikir leh waa nin runtii aad iyo aad u jecel inuu wax ku soo kordhiyo deegaanka uu ka soo jeedo waxaan isleeyahay haddii uu ku guulaysto insha Allah Yaasiin hadduu ku guulaysto golaha deegaanka weliba hadduu ku guulaysto maayarnimo in waxyaabo badan ka bedeli karo haddii ay tahay waxyaabaha maanta dadku ka cabanaya ee kamida wadooyinka ee kamida waxyaabihii dee la oran jiray khadamaat alcaama ama bunya taxtiya ee dawladda hoose dadku uga xaraadanaa ee ka filayay maalin walba aynu maqlayno cabashooyinkooda waxa weeyaan waxyaabaha ku kalifay inuu isu sharaxo dawladda hoose isagoo ka duulaya inuu waxyaabaha wax ka qabto marka waxaan rumaysanahay inuu waxyaabo badan ku soo kordhin karo waxyaabaha maanta cabashooyinka ka soo yeedhaya dadweynihii reer Hargeysa inuu waxyaabo badan ka soo bedeli karo haddii Ilaahay ku guuleeyo